kumanaan sano kadib iyo qarnigii 12aad iyo qabsashadii dadka reer Norman ee ka talinaysay dalka Ingiriiska. Dadka reer Norman iyo canshuurahooda aan dhamaadka lahayn ayaa lagu khasbay dadkii shacabka ahaa, waxaana sidoo kale la boobay dhulka iyo awoodihii ay lahaayeen dadka reer Saxon. Dadka magaalada oo dhanna waxay la nool yihiin cabsi iyo cadaadis. Saaxiibayaal, mar kale kusoo dhawaada YouTube channelka Zaki Lasso, kuna soo dhawaada taxanaheena maanta oo ah mid xiiso leh. Saaxiibayaal, waxaan recap ama dib u soo koobid ku sameynaynaa taxanaha cusub ee Robin Hood. Haddaba taxanaheena xalqadiisa koowaad wuxuu ku bilaabanayaa aabba magaciisu yahay Locksley oo wiilkiisa yar uga sheekeynaya taariikho hore. Wuxuuna uga sheekeynayaa dadkooda reer Saxon iyo awoodihii ay lahaayeen. Locksley wuxuu kasoo jeedaa dadka reer Saxon, waxayna lahaan jireen boqortooyo aad u weyn. Wuxuuna sidoo kale u sheegayaa halyey magaciisu ahaa Edric, kaasoo difaaci jiray dhulka dadkooda. Laakiin Edric markii si gaadma ah loo dilay, dadka Normanka ayaa la wareegay awoodda iyo boqortooyada dalka. Subaxdii marka la gaarana, Locksley wuxuu xaaskiisa u sheegayaa in uu aadayo magaalada Nottingham. Wuxuuna rabaa inuu kala soo heshiiyo in boqortooyada Normanka ay u fasaxdo dhulalka ay ka haystaan dadka reer Saxon. Intaasi kadib, Locksley wiilkiisa yar wuxuu kasoo kacayaa hurdada, isla markaasna hooyadiis waxay u sheegaysaa Locksley in uu aaday magaalada Nottingham. Markana waxaan arkaynaa sharifka magaalada iyo gabadhiisa Priscilla oo taagan banaanka qasriga madaxtooyada, waxayna sugayaan in ay soo dhaweeyaan mid ka mid ah madaxda Normanka. Magaciisana waa Huntingdon. Sharifka magaalada iyo Huntingdon markay gudaha qasriga u galaan, waxayna ka wada hadlayaan arrimo la xiriira canshuuraha. Sharifka gabadhiisa Priscilla waxay baranaysaa xukunka si ay uga dhaxasho aabaheed. Intaasi kadib, Locksley iyo saaxiibadiisa waxay imaadeen qasriga madaxtooyada. Markay gudaha u soo galaan dhismaha boqortooyada, waxay arkayaan oday baadari ah oo taagan albaabka, waxayna ku khasban yihiin inay ka dhunkadaan gacmaha. Laakiin Locksley wuu iska indhatirayaa, waxayna u sheegayaan in ay rabaan in ay la kulmaan Sharifka. Ugu dambeyntiina wuu u ogolaanayaa inay gudaha u galaan. Locksley markan wuxuu horjoogaa Sharifka, wuxuuna leeyahay waxaan ahay Locksley kana soo jeeda dadka reer Saxon. Boqortooyada Normankana waxaan ka codsanaynaa inay noo fasaxdo dhulalka ay ka haystaan dadkayga. Intaas kadib, Sharifka magaalada wuxuu ku leeyahay ma waxaad ka soo jeedaa dadka reer Saxon? Waan ogahay inaad ka talin jirteen dhulkan, laakiin waqti xaadirkan anaga ayaa maamulna halkan. Suurtagalna ma aha boqortooyada Normanka in ay kugu wareejiso dhulalkeeda, laakiin waxaan ku siinayaa fursad dahabi ah oo ayna boqortooyada Normanka horay u bixinin. Laga bilaabo waqti xaadirkan waxaad tahay ilaaliyaha keynta, waxaadna helaysaa khidmad lacageed oo kugu filan. Sheekada marka intaas maraysa, Locksley saaxiibkiisa wuxuu si hoos ugu sheegayaa in uu ka faa'iideysto jaaniskan dahabiga ah, laakiin Locksley kuma qanacsana in lacaga yar uu ku iibsado dhulka dadkiisa. Si kastaba ha ahaatee, kama hor imaan karo xukunka boqortooyada. Ugu dambeyntiina wuu aqbalayaa. Intaas kadib waxaan arkaynaa Locksley iyo wiilkiisa Rob, wuxuuna barayaa liifka. Isku day badan kadib, waxaan arkaynaa Rob oo markan ku wanaagsan liifka. Maalinta kalena waxaan arkaynaa Rob oo si qarsoodi ah u fiirinaya qasriga Huntingdon, isla markaasna Marian oo ah gabadha Huntingdon waxay ku soo baxaysaa isaga, waxayna su'aalaysaa waxa uu ka qabanayo halkan. Wuxuuna ku jawaabayaa in familkiisa ay ku noolaan jireen waqti hore, laakiin Marian way adag tahay inay aaminto isaga. Dhanka kalena, Huntingdon wuxuu ugu yeerayaa gabadhiisa. Markay u soo dhaqaaqdana, wuxuu weydiinayaa waxa ay ka qabanaysay duurka. Gabadha yarna waxay u sheegaysaa in ay soo aragtay wiil yar, kaasoo sheegayana in aabihiisa uu lahaa gurigeena. Isla markaasna Huntingdon wuxuu bilaabayaa in uu ku qayliyo, waan ogahay Locksley oo in aad adiga tahay, laakiin waxaad ogaataa inaadan halkan imaan karin. Locksleyna qaylada Huntingdon wuu maqlaa, isla markaasna wiilkiisa ayuu kasoo wadanayaa goobta. Ugu dambeyntiina markuu keeno guriga, wuxuuna bilaabayaa in uu ku qayliyo uuna weydiiyo wuxuu ka qabanayay halkaas. Laakiin Rob intuuna jawaabin, hooyadiisa ayaa soo dhexgalaysa, waxayna u sheegaysaa kaliya wiilkeeda in uu soo cayaarayay. Intaas kadibna waxaan arkaynaa daawadayaasheena oo muuqaalka like gareynayo. Haddaba 15 sano kadib, waxaan arkaynaa Rob oo weynaaday, wuxuuna la cunteynayaa waalidiintiisa. Sidoo kalena boqortooyada Normanka, Huntingdon gabadhiisa Marian iyo sidoo kale Sharifka gabadhiisa Priscilla, labadoodaba way weynaadeen, waxayna markaan rabaan in ay soo booqdaan keymaha Nottingham. Locksleyna ay ka wareystaan xaaladda keynta. Safar dheer kadib way imaadeen madaxda Normanka, waxaana Sharifka uu Locksley ka wareysanayaa xaaladda keynta. Locksleyna wuxuu u sheegayaa in wax walba ay wanaagsan yihiin, laakiin sheekada markan waxaa kusoo biiray Huntingdon iyo gabadhiisa Marian. Robna waxay indhihiisa qabanayaan gabadhii uu yaraantiisa la kulmay, laakiin hadda ah gabar ka qurux badan xasuustiisa hore. Wuxuuna markaan xasuusanayaa Marian inay tahay gabadhii uu yaraantiisa la kulmay. Intaas kadibna martida waxay dib ugu laabanayaan boqortooyada. Maalinta xigtana, Rob wuxuu soo aaday guriga Huntingdon, wuxuuna markaan raadinayaa quruxleydii uu shalay soo arkay. Marian markay aragtay qofka ku dhuumalaysanaya geedka in uu yahay wiilkii ay shalay soo aragtay, waxay ilaaladeeda u sheegaysaa inay halkooda sii joogaan. Markay geedaha hoostiisa soo gashana, Rob waa uu isqarinayaa, wuxuuna isla markaasi u sheegayaa in ay soo xasuusatay yaraanteeda, in ay halkan ku kulmeen. Ayadan xusuusteeda ayay dib u celinaysaa, waxayna ogaanaysaa in uu yahay wiilkii yaraa. Sheeko dheer kadibna, Marian ilaaladeeda way soo baxeen, laakiin Rob isla markiina wuu iskaga cararayaa goobta. Marianna waxay u sheegayaan in ay nasiib ku yeelatay in uuna aabaheeda arag. Daawadayga sharafta leh oo aan muuqaalka weli like saarin, sheekada markan way isbedelaysaa, waxaana Huntingdon uu soo aaday guriga Sharifka. Wuxuuna u sheegayaa in uu ka baqaayo in dadka reer Saxon ay xukunka dib ugu laabtaan, laakiin Sharifka wuxuu Huntingdon weydiinayaa waxa uu ku cadeynayo arrintaas. Huntingdon oo qorsheynaya in Locksley la soo xiro, wuxuuna leeyahay Locksley iyo wiilkiisaba waxay gurigeyga soo weerareen 2 jeer, waana in aan soo xirnaa isaga. Sharifkana wuu ka helaa sheekadaas
mar haddii xukunkiisa faraha lala soo galay. Subaxda kalena Maryan waxay soo aaday xaafadda Rob, waxayna hooyadiis weydiinaysaa Loxley wiilkiisa Rob inuu halkan ku nool yahay. Isla markaasna maamada waxay u wacaysaa wiilkeeda. Maryanna markan waxay ogaatay Rob inay dhashay maamadan. Rob markuu banaanka usoo baxana iyo isaga oo ay lama filaan ku noqotay Maryan inay timaaday xaafadiisa, waxayna u sheegaysaa in ay aad ugu xun tahay wixii shalay dhacay. Laakiin Robna wuxuu u sheegayaa in aanan loo baahnayn midaas, isaga iyo familkiisana inay aadayaan aroos ka dhacaya xaafadooda. Isla markaasna Rob hooyadiisa Maryan waxay u sheegaysaa in ay jeclaan lahayd in ay raacdo iyaga. Ugu dambeyntiina way soo wada raaceen. Laakiin intaanan la gaarin goobta arooska waxay Maryan Rob u sheegaysaa in ay ka baqayso aabaheeda in uu soo raadiyo haddayna ciyow laawanin. Laakiin Rob wuxuu u sheegayaa in aysan bixin maanta oo kale, uuna u rajaynaya nasiib wacan aabaheedana uu soo raadinin. Ugu dambeyntiina waxay imaadeen goobtii uu ka dhacayay arooska. Robna markan wuxuu Maryan barayaa saaxiibadiisa iyo sidoo kale dhaqanka iyo qaabka ay isku guursadaan dadka reer Saxon. Ugu dambeyntiina Maryan waxay bilaabaysaa inay la ciyaarto Rob, mana ahan markan gabadhii ku dhex cidloonaysay qasriga boqortooyada, waxayna dareemaysaa farxad iyo kalgacal. Laakiin markan aan u gudubna qasriga Huntingdon markuu kusoo laabto guriga, isla markiiba waxaa lagu wargelinayaa gabadhiisa in aysan joogin xaafadda. Inta ay Maryan ku dhex jirto gacmaha Rob weliba iyadoo dhool cadeynayso, aabaheedna wuxuu diyaarinayaa ciidankii lagu baadigoobi lahaa. Farxadda ka dhex soconaysa keymaha reer Saxon iyo carada Huntingdon waa sidii laba tareen oo isku soo socda. Markanna waxaa la gaaray waqti habeen. Rob iyo Maryanna si gaar ah ayay u soo baxeen. Maryan sheeko dheer kadibna waxay u sheegaysaa maanta inay tahay maalin farxadeed oo aanan la ilaabi karin, isagana sidoo kale wuu uga mahadcelinayaa waqtiga ay u hurtay isaga. Ugu dambeyntiina wuxuu keenay guriga, waxaana la gaaray waqtiga macsalaameynta. Markanna waxaan arkaynaa Maryan oo rabtay inay soo xirto faraska, laakiin aabaheeda ayaa si lama filaan u dul taagan, wuxuuna weydiinayaa meeshii ay ku maqnayd maanta. Laakiin Maryan markaa waxay doorbidaysaa inay noqoto quraansho, waxayna iyadoo aad u naxsan ku jawaabaysaa inay la jirtay Priscilla. Huntingdonna wuxuu ku leeyahay Priscilla aniga ayaaba la joogay, isla markaasina wuxuu usoo qaadanayaa jeedarka fardaha. Waadna qiyaasi kartaan waxa ka dhacaya halkaas. Dhanka kalena Priscilla yacni gabadha uu dhalay Shariifka waxay ku riyoonaysaa riyo aad u xun. Riyadaasina waxay tahay qof ka soo baxaya geed hoostiisa sida dhir dhalanaysa oo kale. Priscilla markan waxay usoo baxaysaa dhanka aabaheeda, waxayna la wadaagaysaa wixii ay riyadeeda ku aragtay. Aabaheedna wuxuu ku leeyahay waxaas waa iska riyo, mana ahan inaad isku mashquuliso. Laakiin ayadan isla markaasi waxay ku leedahay waan ogahay Huntingdon inuu ka dambeeyo soo xiridda Loxley, midaasina uu ku rabo dhul balaarsi iyo inuu la wareego maamulka keymaha Nottingham. Shariifkan intuu soo jeesta ayuu ku leeyahay ayaa ku ogeysiiyey waxaas. Ayadan waxay u sheegaysaa soo xiridda Loxley iyo damaca Huntingdon inay iswaafaqaan. Intaasi kadib Shariifku wuxuu leeyahay soo xiridda Loxley waxay ku timaaday khiyaano uu ku sameeyey boqortooyada Normanka. Ugu dambeyntiina Priscilla hadalkeeda waxay ku soo xiraysaa waxaan ka baqayaa soo xiridda Loxley inay ka dhalan karto wax aad u xun. Dhanka kalena Rob buu jiifaa, balse maskaxdiisa waxaa ka dhex guuxaya dhawaqii muusikada arooska reer Saxon iyo sidoo kale dhoola cadeyntii Maryan. Balse si lama filaana waxay dhagihiisa maqlaan shanqarta fardaha oo xawaaro ku socda. Loxley iyo wiilkiisa waxay markan dareemayaan in weerar lagu soo qaaday. Markay banaanka usoo baxaan waxay arkayaan askarta Normanka oo hubeysan, isla markaasina waxay weydiinayaan aaway Loxley. Loxleyna wuu isku sheegaya mid kamid ah askarta Normanka magaciisuna yahay Gisborne, wuxuuna leeyahay waxaad tahay xarig. Loxley iyo familkiisana waxay markan wajahayaan cabsi iyo naxdin. Intaasi kadib xaaskiisa waxay kula dardaarmaysaa inuusan madax adeegin, sidoo kalena uu ku xanaaqin askarta. Ugu dambeyntiina si xooga ayay ku wateen, markay keenaan qasriga sidoo kalena ay geliyaan xabsiga. Loxley wuxuu askariga Gisborne ku leeyahay in uu xaq u leeyahay in uu ogaado sababta loo soo xiray, laakiin Gisborne jawaabtiisa waxay noqonaysaa markuu waaga baryo ayaad ogaan doontaa. Intaasi kadib wuxuu arkayaa laba qofood oo la xiran isaga, isla markaasina askarta waxay u yeerayaan midkood mid kamid ah, waxaana loo sheegayaa in ay hortaalo fursad looga sii daynayo xabsiga, waana in uu dilaa Loxley. Axadkan dabaalku u egna wuu aqbalay markaas. Dhanka kalena waxaan arkaynaa Rob hooyadiisa oo xanuunsatay, isla markaasina Rob adeerkiisa wuu joogaa, wuxuuna weydiinayaa sababta ay u xireen aabihiis, laakiin wuxuu u sheegayaa inaysan sheegin wax sabab ah oo ku aadan xarigiisa. Intaasi kadibna Rob wuxuu leeyahay waa inaan isla cawada baxaa, laakiin adeerkiisa wuxuu ku leeyahay waa inaadan hooyadaa ka tagin cawada. Dhanka kalena maxbuuskii gudaha ayuu soo galayaa isagoo watana mindi, laakiin Loxley ma ahan mid si fudud loo hantiyo. Dagaal ba'an ayaana ka qarxa xabsiga dhexdiisa, iyadoo labadaba ay siirsanayaan ayuu mid kamid ah askarta Normanka soo dhex galaya, waxaana si qalada uga dhacaysa mindidii loogu talagalay Loxley. Dhulka ayuuna ku dhacaya isagoo dhiig baxaya. Loxley oo damiirkiisa u ogoleen inuu daawado qof dhimanaya wuxuu u dhawaanayaa askariga si uu u caawiyo, laakiin maxbuuska wuxuu arkaa fursad kale uu iskaga baryeelo dhacdada, wuxuuna mindidiisa ku hoos tuuraya Loxley dhankiisa. Isla markaasina askartii kale waxay arkeen saaxiibkoodii oo dhimanaya iyo sidoo kale Loxley oo mindidii dhiigga lahayd ay agtaala jirin cid dhageysatay isaga, waxaana loo qabtay sidii gacan ku dhiig la dilay askari. Intaasi kadibna waxay hor keenayaan Shariifka hadalkiisana wuxuu noqonayaa wixii aad geysatay waa in laga abaalmariyaa, laakiin Loxley intuu xanaaqa ayuu leeyahay waxaad igu xukminaysaa waa sharci been, sharciga iyo boqortooyada aad hadda isticmaalaysaan waxaa lahaa waa dadkeyga, waxaadna qaadateen dhulka iyo hantida iyo wax walba oo ay lahaayeen dadka reer Saxon. Intaasi kadib Shariifku wuxuu leeyahay marka hore waxaan rabay inaan kuu dabacsanaado, laakiin mar haddii aad sidaan u hadlayso waa in sharciga lagugu qaado, beri subaxdiina ku bishaarayso in lagu daldalayo. Daawadayii sharafta leh ma ogtahay in Loxley cabsida oo dhanba ay ka guurtay. Intaas kadibna waxaan arkaynaa dadka magaalada oo la iskugu yeeray. Baadariga Normanka wuxuu u khudbeynayaa shacabka, wuxuuna leeyahay ku bishaaraysta cid alaala cid ay ka hor imaato xukuumadda Normanka in masiirkooda uu halkaas ku dambeyn doono. Ugu dambeyntiina Rob buu imaaday, wuxuuna isla markaasi arkayaa isku soo bax shacab iyo in qof la rabo in la daldalo, laakiin Rob ma oga in aabihiisa uu yahay cidda la daldalaya maanta, ilaa marka dambe uu arkay in aabihiisa uu yahay, waxaana halkaasi ugu bilowday naxdin iyo argagax. Wuxuuna usoo
dhaqaaqayaa dhankiisa isla markaasna askarta way qabanaysaa, laakiin Loxley wiilkiisa wuxuu u sheegayaa inuu istaago uuna dagaalamo. ugu dambeyntiina halkaas ayuu ku istaagay Rob uuna dhageystay hadalka aabihiis. haddaba intaas kadib waxaan aragnaa Loxley oo ugu dambeyn la daldalay. xanuunka uu dareemayana Rob ma ahan mid kelmado lagu cabiri karo. haddaba taxaneena xalqadiisa koowaad halkaas ayay ku dhamaatay.